xafladani uu soo qaban qaabiye maamulka xafiiska xisbiga nabadda iyo horumarka oo marka magaciisa la soo gaabiyo loo yaqaano PDP ayaa lagu qabtay hotelka caalamiga ee Noora International magaalada Johannesburg ee dalkani Koonfur Afrika. boqolaal qof oo ah jaaliyada Soomaaliyeed ee magaalada Johannesburg ee dalkani Koonfur Afrika ayaa ka soo qayb galay iyadoona ay ka soo qayb galayaashan isugu jireen mas'uuliyiinta xisbiga dalkani xubno ka tirsan xisbiga PDP iyo marti sharaf kale oo waxayna ujeedada xafladani ahayd furitaanka xafiis uu xisbiga ku yeesho magaalada Johannesburg ee dalkani Koonfur Afrika. xisbigan sidii runta taariikhdiisa oo si fiican baa kaga hadli doona ujeedada halkaan aan rabo inaan xisbi maxaa keenay in la asaaso uu gartay madaxweynaha haana gudoomiye xisbiga PDP kan soo laastay PDP xisbigan caawa halkan u fadhinay xafladiisa fikirkiisa guud ahaan wuxuu bilowday doorashadii Jabuuti kadib bishii labaad waxaa soo gashay in dad kooban ay isu yimaadaan oo yiraahdaan ma yahay hadii mar waxaan ku raadaan heshiis la gaaray هذا وجدتي دولتي عبد الله يوسف هي جبهة لا دجالميسي جبهة دي هجان كذي أي مدحوينة طبعا كانوا غير سيستم كمان هو إسرائيل ويكون بانتعي إن جانتات ولا قدام ما هو محاد أحزاب إن لوجي حزبي وأصول جري كران كفر السنة دي وما زال نصور شقينا هاي سيستم النظام يحول على استراكشر هي اسمه أفريدان إري أيان إذين إفتينشو إيو أركتيدي كو آدم أوروركن إفتين ويو أوروركن أبحي أمد صومالي ونباهن الله إيو إنتي إسلاما إيو سو أورد ماها إيوا أمانا علوسون إسكنو حنبارينو أمر بينهم شورى إيو آيات إله ويو أدب دحات كيسو وحينو عاو هالكن مفردنا إنو بقادين aan u dirno isla marhaantana aynu soo bandhigno qaybo ka mid ah barnaamijyada xisbiga nabadda iyo horumarinta ee Soomaaliya. qaar ka mid ah jaaliyada Soomaaliyeed ee ka soo qayb gashay xafladani furitaanka xafiiska xisbiga nabadda iyo horumarka ee magaalada Johannesburg ayaa ugu baaqay madaxda sarsare ee xisbigani inay sii dardar galiyaan howlaha iyo samata bixinta ummadda Soomaaliyeed ee dhibaatada ku jirtay muddada dheer. si kastaba ha ahaatee xisbiga nabadda iyo horumarka ee PDP ayaa ka mid ah xisbiyada siyaasadeed ee ka jira dalka Soomaaliya ayaa wado dadaalo dheeri ah oo xisbigani xarumo uga furanayo magaalooyinka waaweyn ee dalka Soomaaliya iyo qaar ka mid ah wadamada caalamka. Cabdinaasir Soomane, telefishinka caalamiga Universal TV, Johannesburg.